الرحمن الرحيم داود كسلوه قبل تي في وقبرتين برنامج عيسى له برنامج كاني وحان كسو قادم دونا دردارن يبوابو اسكو جرتا ولو جيدي xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya dardaarankaasi waxaad moodaa in uu ku soo aaday waqtigeedii maadaama aad wargaranaysaan xildhibaanada sanadan kusoo biiray baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaasatan waxaan rabnaa in aan ku hadalno xildhibaanada ku matalaya beesha Maxamuud Hiraab baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sanatarka aqalka sare haddaba dardaarankan uu u jeediyey mudanahaasi xildhibaanada kusoo biiray sanadan baarlamaanka federaalka waxa aad ka garanaysaa tayada ay leeyihiin xildhibaanada iyo hadalada uu u isticmaalayo dardaaranka uu u jeedinayo iyo guwaabada uu u jeedinayo intaba xildhibaanada sanadan waxaa lagu xantaa in ay yihiin kuwo ku yimid oo xan kaliya ma ahayn waxyaalo badan oo cadeymo ah ayaa loo hayaa balse waa ay dhacday in ay noqdaan xildhibaankani oo ka duulaya taas ayaa waxa uu u jeediyey dardaarankan bal inala dhageysta dabada ka eriyay daaqa ka eriyay nin hadduu doono si kale wuxuu farsamo xumeeyay dhammaan markay arrintu isku soo ururto waxaaskii helay kuraasiinkeena ku fadhiyo waa kuraasidiini dariiqa doontaa ku timaadaan waxba taasi daruuri maaha daruuri dib looma raaco idinka wadanka ka baarlamana idinka kuraasti ku fadhiya ilaahay baa idinku guuleeyay subxaanahu wa tacaala waxaynu u baahannahay horu socod iyo inaynu dareenno xaaladdu halka ay marayso farxadda wejiyadiina ka muuqata iyo raynraynta iyo dadka maanta laydinku faraxsan yahay yaani arrintaasi hoos u soo dhicin oo nin Soomaaliya la yidhaahdo xoogaa amala doqonnimo lagu tuumayay ayaa intuu malaha lumay gurigii ka lumay la soo helay ayaa dadkii soo weego wuxuu maxaa ku faraxsantihiin oo ku qoslaysa waxaan ku faraxsanahay in lagu soo helay la yidhaahdeen soo biriba lumi maayo soo biriba hadana lumi maayo marka taasi ay nagu dhicin farxadeena ilaahay oo taam yeelo daawadayaal waad dhageysateen khudbadii loo jeediyey xildhibaanada oo ahayd mid aad u qiimo badan oo ahaantii wuu asiibay waxa uuna dareemay waxa meesha yaallo iyo dhibaatooyinka iska jira Soomaaliya haddaba waxa aanu annagana aan la dardaarmaynaa xildhibaanada beesha Maxamuud Hiraab waxaanu leenahay bahda garabda TV waa idinla socotaa waa idinla xisaabtamaysaa waa idin toosinaysaa waa idin dhaliilaysaa haddii loo baahdana waa idin amaanaysaa haddii aad ka soo baxdaan shaqadii ladiin xigmaday iyo inaad u shaqaysaan dadkii iyo deegaankii aad ku matalaysaan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadduu noqon lahaa aqalka sare iyo kan hoose intaba haddaba haddii aad shaqadiina kasoo dhalaashaan sidaanu idin sheegnay waa idinku amaanaynaa shaqadiina nin walbaba sida uu wax u qabto ayaana lagu sheegayaa cidna dhaliili mayso haddii aysan dhaliil lahayn garabda TV dadweynaha sharafta leh bahda garabda TV waxa ay u taagan tahay toosin dhaliisheeduna ma aha mid shaqsi lagu beegsanayo waa mid lagu toosinayo madaxda iyo xildhibaanada ku matalaya beesha Maxamuud Hiraab daawadayaal intii aan ku kulmayno barnaamijkan mid ah waxaan ku fiirinayna bye bye